ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada Mombasa ee degmada Gurisama ee gobolka Faafaan ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib shaqaaqo ka dhalatay ogaas loo balansanaa saaki in halkaasi lagu caleemo saaro mid ka mid ah beelaha degmadaasi Gurisama. Dad goobjoogyaal ayaa waxay xaqiijiyeen in sidoo kale oo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo caleemo saarka saaka goobta u tagay, waxaana rasaasta sida la sheegay furay ciidamada dowladda. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xiisada wili laga dareemayo degmada Gurisama ee gobolka Faafaan ee dowlad deegaanka Soomaalida, halkaasi oo ay ka taagan tahay muran la xiriira caleemo saarka ogaaska. Ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowlad deegaanka ayaa tagay goobta ee shaqaaqada ka dhacday, waxaana dhaawaca dadka shacabka la geeyay isbitaalka weyn ee degmada Gurisama ee gobolka Faafaan ee dowlad deegaanka Soomaalida. Laamaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wili ka hadlin shaqaaqada, ha yeeshee waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka hadlaan hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana ay faahfaahin ka bixiyaan. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye. waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo weliba tifiyada Soomaalida dhammaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay, adiguna ma ku qanciyay.